الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة بشير رمضان والصدح هي لواتن وهذا الذي ترى إسلمان هاي إلا في ليلة القدر waxa ay ku soo beegantay habeen jimcaha marka culimadu waxay leeyihiin waa waqtiyada loogu rajo badan yahay sida uu tilmaamay rahimahullah ibn Taymiyyah iyo ibn Rajab al-Hanbali labada sheekhba markay masalada ka hadlayaan waa laba arimood oo waaweyn oo iswaafaqay bay leeyihiin nicmooyinka Ilaahay inuu dareenaana aad bay muhiim u tahay ilaa 9 nicmo ayaynu rajaynaynaa aynu haysanayno Allah inoo barakeeyo taw horeyso waynu soo soomanayn Allah inaga aqbalo salaadiina waa u taagantahay quraankiina waynu akhriyayna i'tikaafkiina waa ku jirnaa cilmigiina waynu dhageysanaynaa habeenkuna waa ka aan soo sheego waa habeenadii laylatul qadriga la filay waana jumce caalamkii korona wiinala jooga oo aynu uga jeedno malaa'ikatu rahmaan ورسول صلى الله عليه وسلم سيدو تلمامي ميل كاستو oo ilaahay dhikrigiisa lagu hayo iyo kitaabkiisa la isku wacdeeyo malaa'igtuna way la joogaan xadiiskii caanka ah sida uu tilmaamay naxariistii ilaahayna way ku soo degaysaa intaaba Allah inoo aqbalo mid kale oo laga yaabo inaydan aad u sii dareemin idinku iyaduna way jirtaa mar haddaad wadankaaga islaamka ha joogto oo cibaadadaadii oo diintaadii iyo aad xor u tahay iyo cibaadadaadii iyaduna waa wax weyn waarinaana haysanin walaalaheena dabada ku nool ee cibaadeysanaya in badan oo kamidi wadamada gaaladu ay qofka sooman shaqadaba ka joojiyeen sida Daanishka iyo maqlaysan maalmihii dhawaa mar rabna way dhaan qof soon iyo waxa wadwada inuu agteeda soo maro marka qof de cibaadadiisi ay calani tahay oo jawigo dham cibaado u diyaariya iyo qof cibaadadiisi suuq madow tahay iyana waa laba arrimood oo kala fog inta markan ka imaado waxaan wax yar ka oran lahaa qodobo kooban laylatul qadriga Allahina waafajiyo laylatul qadr qodobka koobaad aan wax ka oranayaa waxa weeye sababu tasmiya maxaa lagu magacaabay laylatul qadr saddex arrimood daraadood ayaa lagu magacaabay baylaan culimadu mid weeyaane waa habeen wax la qadaray sidoo Ilaahay ku xusay quraanka ba فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا هذين كاسا wax badan Ilaahay oo qadaray buu caalamka soo gaarsiiya malaa'igto markaasuu raada sida uu kala fuliy mid baa la casilaya mid baa la dalacsiinaya mid baa geeriyoonaya mid baa dhimanaya mid baa saasay u soconaysa waa habeen Ilaahay uu qadaro qadarkii bay marka arintu ku lug leedahay waxa labaad loogu magacaabay وشرف ليلة القدر وهذينك شرفك وما قدر الله حق قدره قالوا إلهي كورم يوم مركزان ربي وحوري إلهي ما يشرفين وما يوينين قدر كتانا وكسعلا قدر كوحا صدحاضا وكأيمان كراه من قدر بمعنى طاقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقدر أو كتني حق عريرجا عريرجا هبينك كتير محوية هذا عريرجا كتير وحوي ملائكة بسود جيس آذو فربضا تنزل الملائكة والروح من اللي بوي بوحده مركز سحمد دي ملائكة أيا عريرجا سوكينا يا علة التصمية صدق لا الرباط با ولا وش هاجي ومالها وبهان الاستول تاجو أن هبين كان استجا القرآن كأفر سورات أيا لهاي وش هاجي بدوا سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة قرآن كوحن سودة شيبه له الهذين بركيسن قرآن كو بركيسين كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب كو سودة شيبه له بركيسن بل كورن السجيا يستلان هذين بركيسن إنا أنزلناه في ليلة مباركة وحل بعضه إلى هاي وكشة سورة الله وقبل مقعد دري سورة القدر اللي يراه وضع التقانين
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سورة داسو لم هبيك أسيك ورميسا بركديس waxa saddexaad oo culimada qayb kamid ah ay ku fasireen habeenkan habeenada uu ku jiro si gaar ah inuu Ilaahay Quraanka ugu calaamadiyay wal fajri wa layaalin 10 wuxuu Ilaahay ku dhaartay waaga bareeya iyo habeena 10 laba qowlun bay ku fasireen culimadu habeenada 10ka ah qolo waxay leeyihiin waa habeenada laylatul qadri uu ku jiro ee 10ka dambe Ramadaan u dambeeya qayb kamidna waxay leeyihiin waa habeenada maalmaha 10ka ah ee u horeeya bisha Arafa ee xajka iyo amaladiisi la gudanayo marka aad eegto labada qowl de qowl wuxuu ku fasirayaa inuu maalin yahay habeenadani waa maalin ay leeyihiin qowlna wuxuu leeyahay waa habeen de ka habeenkay ku sii cadda ila maalinkuna waqtiga qorraxda la yiraahdo habeenkiina waqtiga madow dayuxu jooga la yiraahdaa marka labada qowl kana ku sii cad habeenkii habeen ku sheegay waxa saddexaad oo habeenkani si dadban ugu sheegay waxa afraad suuratul baqara shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran wa bishi quraanka la soo dajiyay marka quraankiina ilaahay wuxuu tilmaamay habeenka in la soo dajiyay laylatul qadriga taa macnaheedu waxa weeye waxay la mid tahay habeenka ku jira ramadaan si dadban buu halkaan ugu sheegay markaynu inta ka nimaadno habeenkan isaga ah waxa uu leeyahay calaamado lagu garto منها المقارن ومنها الملاحق علامة لا حديدة يكون كذب بيابا إنها علماء الدراسية النصوص إياه كأنن خبرة دود عما أنت كاركه وحكم إذا علامة هاس قوة الإضاءة في تلك الليلة بين كافتين باكرة سيادة إنك استوى يارك كلام بين لين تذكر لها عدلة أشوجة لكن قف قد الله يركن فرها بدن شوجة waa laga yaabaa inaanu aad u arag waxa labaad oo calaamadaha kamid ah tumaaniina xasilooni dadku ay helayaan iyo deganaansho waxa saddexaad oo calaamadaha kamid ah deganaansho dalka laftiisu leeyahay wixii habeenada guuxi jiray iyo wixii buuqaya iyo duufaanadii iyo dabaylihi iyo waxa Ilaahay kala joojinaya ila caalamkii kala soconaya malaa'igtii waxa afraad oo calaamadaha kamid ah dhawqul cibaada dhawq في العبادة إن عبادتنا دميسو قفك هذينك معان عبادة ضايلة على أبويك ملاحق كذب أيمن يا وحكم من السيد حديث وعطينا صحيحة إن صباح ذي يصاب هذا قرحته يدا صافية حكى فائدة هدي هذينك يبتجي وحكى فائدة دينا بشاريسته وأقدر ينتحل يا هذا سو عبادة سنة يسود دعاء سنة يسي إنه لهي كوافتي مركز العلامة دي أركت قرح ذي وان شعاع فالله كيره نصير ضيع حصاك وين تستبشر وتبشاري سنيس رجوين بعد قاضيس أن أصحاب تقاركود وعلامة اللي هذا وحول يرى إن إلهي منامكو أركان سبحانه وتعالى يضرب وحو ناكسن وأرين سورة قال أنا ويي لأن علماء اللي حدا سي علاموين كشيغان إنها أي سوروريين هذين كان يسقى فضائل بولي هاي إلى تضبين وكسو قادن كرنا فضائل كيسوي بدين midda koobaad ilaahay wuxuu tilmaamay hibadii iyo hadiyadii u weynayd inuu habeenkan ilaahay umada siiyay waa quraanka kariimka deeqdii ugu ballaadnayd waa kalaamkii ilaahay ee ilaahay umadan uu siiyo waa habeenkan la siiyay waa fadligiisa waxa kamid ah habeenkan isaga ah inuu ilaahay tilmaamay umur badan inuu qadaro go'aamada ilaahay baa soo baxaya ee fulintu uu yaala markaa fiha yufraqu kullu amrin hakim habeenkan quraanku wuxuu tilmaamay inuu barakaysan yahay barakana maxayt baraka waa wax ka qiimo badan badnaanta wax badan oo aan arkayn baa barakada ku jira markuu shaygu barakaysan yahay hoostu ka soo maaxaa soo ma taqaanid maaxda ceel aan arkayn meel biyiisu ka imanayaan oo dhamaan la marka shayga barakaysani waa shay ka qiimo badan badnaanta waxa quraanku uu tilmaamay habeenka isaga ah inuu ka khayr badan yahay maxay kumbilood khayrun min 1000 shahr de kumbilood hadduu ilaahay ku waafajiyo habeenkaas oo kaliya hal qarni wax ku dhow hore u booday cimrigaagii wax hore u kacay hal qarni wax ku dhow oo ku tirsan yahay waxa quraanka ilaahay uu ku xusay subhanahu wa ta'ala habeenkaas inay malaa'iktu soo degayso maxaad ka weydaa haddii malaa'iktu soo degayso mid waa inaynu ku bushaaraysanaa meel haddii malaku soo dego khayr u dheh khayr ilaahay baa dhaamiyo ka buux meelna haddii shayaadiin ku soo degta balaaya ka orinaysa marka kol haddii malaa'igi timaado waxa halka laga fahmayaa shaydaana firdhay ee badar oo nakhri maalintii badar
shaydaanku wuxuu meelihii warwareegaba markuu arkay junuudii ilaahay oo soo degayso caalamka kore ka soo daadegaya waa kii firdhaday malaa'igtaasi hadday noo yimaadeen ay habeenka aada u fara badan yihiin waxay buufiyeen bahalkii la odhan jiray bahalkii bani aadamku cuni jiray shaydaanka la odhan jiray habeenkaa qur-aanku wuxuu tilmaamay waa fadliga lixaade salaamun hiya xataa maطlaci اlfajr waa nabadgeli waxaad ka nabad gashay shaydaankii waxaad ka nabad gashay macaasidii waxaad ka nabad gashay balaayooyinkii waxaad ka nabad gashay sharkii waxa fadli weyn ahoo toddobaad oo rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkiisa saxeixa uu ku tilmaamay wixii aynu la rooreynay inuu ilaahay inaga reebayo allah inaga reebo ee dembiga ahaa man qaama laylata alqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembi dembigii baa la jafaya ka waaweynna allah inaga raaciyo maxaad inoogu miyaysaa ka yaryar iyo ka waaweyn labadaba allah inaga reebo habeenkaa isaga ah waxaasoo fadaa'ila iyo waxaasoo qiimaabu le waxay isweydiin lahum halkee loo aanaynaya taa dayn badan baa wacdiga ku maqasheen taxaraw laylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan xadiidka saxiixa saasuu nabigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam ku dadaala habeenkaa tirada isdhiman ee tobanka bisha u dambeeya ramadaan tirada isdhiman ku dadaala iyadoo kolleyba tobankii la wada dadaalaya meelahaasaa lagu sii dadaalaya qodobka lixaad aynu wax ka odhan lahayn waxa weeye habeenkaa maxaa la qabanaya habeenkaa waxaa la qabanayaa laba arrimood cibaado iyo duco ducaduba cibaadaday ka mid waa qiyaamkii iyo qur'aankii oo iswata in qur-aanka habeenkii lagu cibaadaysto waa kan xadiidkan aynu akhriyayna caddaynaya waman qaama laylata alqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi lama odhan ninka mafrishka fadhiista lama odhan ninka qarxaya ee qamxaya ee buuqaya lama odhan ninka meel kale ordaya ama ciyaaraya waxaa la qaama inaad ilaahay hor taagan tahay habeenka kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak sida aad arkayso o kale ad ilaahay u caabudaysa haddaanad arkayna isagaa ku arkaya iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ilaahay baad hor taagantahay habeenkaa markaasuu isugu kaa beegbeegayaa badhamada khayrka waxaa labaadoo habeenkaa la qabanayaa sida axaadiidta saxiixa ku sugan in la ducaysto caaisha waxay tihi maxaan idhaahdaa habeenkaa haduu ilaahay waafajiyo muxuu yihi markaa allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cani waxaynu iyadana isgar dul taagaynaa ducadaa waa la dhaafaa une iyadana faa'iidada ku jirta waxay leeyihin cafiskaas waa cafwun min alabdaan wa cafwun min aladyaan wa cafwun min addayaan cafwu alabdaani waladyaani wa min addayaan subxaana cafis jidhka ah cuduradu ilaahay kaa cafiyaya haddii ducadu ay ku waafaqdo cudur badan oo dhakhtarku uu kari waayo oo meelaha dibadda loola cararo laga soo quustay ayuu ilaahay caafimaad kaa siinaya adyaantaadi iyo dhaqankaagu ilaahay kuu saxayaa tawfiiq buu ku siinaya khayrku ku waafajinaya macaasida iyo balaayadana wuu kaa duwaya waa cafwun min addayaan ilaaha raxmaanka ah ayaad ka helaysaa saamaxaad inuu kaa saamaxo wixii hore ee tegey wakadalika cafwun min alfaqri halkaa faqriga soomaynaan dhowcayn dhiishiisiina waa la tuuraya allah inaga reebo maxaa u daliila yas'aluunaka maada yunfiquun qul ilcafw nebi maxamedo haddii ay ku weydiiyeen asxaabtu maxaa la bixinaya waxaad tidhahdaa cafiskaa la bixinaya marka cafisku mar buu siyaado noqdaa haddaad siyaado heshana wixii kasoo horjeedo siyaado la-aan oo faqriga ah ayaa ista kaa hadhaya markaa sirta ku jirta ducadan waxa weeye diin iyo dunyo diintiina waad heshay waa lagu siinaya dunyadiina waa lagu siinayaa haddaad intaa aynu ka fahmno saaba umaynaan fahamsanayn malaha dee nagtun baynu ku hayn doonaa اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وهذا ما أقوله وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته